قرضه يبيه مرنا وايريهن مرنا ضدك قادان أنا قرضه وماشان كبلا بين نلش الله فلو رجحه حصلر ما كان نقدر مركوات أنا غير بان بالديها بيها قاعد شري وقبلها رقدوت كاهو حرقونية أنا بيه كوداتان بانو قاعد شري وبيه مركز بموضوع بيعين شره وأنا ماشى بوجي قبل يغورس نوال كاهي بوجي سكوات كلامان مقالة قرده ماشوا كبروا ذوي مركب مقالة قرده هرتاني وحرير كجار كمان لا ده هاي وحى أبال يقول مقاحدي كرقص ولا بيردود كهاي وأنصحن كباست ذا كلب قوين شري مركي ما أنتوا يروحوا معته إن كسر دور شهر أن جذوه صحن كباست ذا هاي مجاو يهاي مركا قرده ساس يعني جيت هاي سيدي عشان شيء جاي سنة كهر ما أنتوا كلاه هيد مركي دور شدوا كده على ماشان ورهر قرض أي دورتين مركو وهري سيكونتني يصدق سنة كذب كل الديجان ويقوليهن أقعد كل صباحين هم بليان ليتها ما أنت مصيبة هبجرتو لكن واحد هاي ستان تولد العد كذا كدورتين والديجان وهوشان أو كلايته هوشة أو دورتين marka taladu gacantiina ku jirtaa taas waa muhiim inaad ogaataan konton iyo 3 sano ka hor tartankii ugu dambeeyay oo doorashadaas uu ku soo baxay golaha deegaanku tii ku xigtay ay ku tartamayeen xirsa magan ciise allaha u naxariistay iyo ninka la yiraahdo xirsi magan iyo Umar Luulaaye iyo looga adkaaday Cabdi Gaajo ay ku tartamayeen haddaan magaalada qarada socotaan dhinaceeda koonfurta haddaad eegteen biyo xireenka ceelmuur la yiraahdo oo magaalada ceelmur biyo xireenkaas wuxuu ahaa meeshuu isku dayay xirsi magan inuu kaga qayb galo tartankii sidoo qardo u waraabiyo oo marka biyuhu ishu kala yahay marka arinta biyuhu waa 53 sano ka hor xirsi magan wuxuu ku tartamayay waan idin waraabinayaa doorta ma idaan dooran haddeer oo 2020 iyo 2 ana biyuhu waa ina qaadayaan marka qardo iyo biyuhu waxay u baahan yihiin horta dib inay isugu noqdaan waxaan aanu idin leeyahay talada waxaan ka hadlaynaa waxaan talada gacanteena ku jirto haddii garacad oo magaalo yar oo magaalo xeebeed ay dekad samaysatay أنا وحنا ليه غير غربون بيها واسك حري كرام لكن ترى ذا قعدتني أنا كسوق بسطوي أنا مركب وحنا كدي يا إني نغطوه وحمر والبابا مركب ده صوب عندي بيسوون نغنو وقعمها تاجنو وبيا إلى تجي بيا الله وهرادان هاي أنكم مشغولو حالك إنك ربعين وينكري ماله مركب تولد وحى يهدا ديار كلات هاي وقول ما تكهدك دكانة وسير كايدين شيء وحى قرشها ورسميها وترى يصير له جهر تجري هنا وسير كاشيء لكن وطاوع عن كبرياء قرضوا قرشه هذي بعمران بيصعب هذا لو قدر جاء إذا كان الذي كان رواينا سيدا هير قرعد يهير مدوب أنت هتدب سكون غطان أتقبل وضعنا ويدوك والحلقة كهتان أنت أسيوا مسؤولية وين مرة كنا إذا كان دور في الدولة الدينية مركب ورهدي عد كلا هيد تهلدو قعنتيني كوجرتا ماتا ما قولنا كلام ما قبان marka horta dib isugu noqda jeebkiin iyo hantidiina maskaxdiina keena wax ka weyn inaad biyaha iska xirtaan baan aqra laga sugayaa wax ka weyn baa laga sugayaa marka arinta xalka waara oo in laynu noloshaana ay noqoto xal waara laga gaaro oo biyaha la iska xiro ay ka mid tahay meelihii biyo xireenka ahay oo kubo oo la degay oo biyo meelay maraan ay laayihiin oo hadda la rabo in guriyihii la dumiyo laga yaabo qaarkiin ay tahay guriga laga duminaya loo baahay inaad ogolaataan arintaasi waa mas'uuliyad maaragtay kulligeen ina saaran marka xalka waara oo biyaha aan iska xirayno wuxuu la mid yahay xalka waara ee dawladnimadeena xal waara u baahan marka halkaas aan galiyaa caaw in kasoo aan ka hadlayno gurmadka geediga gurmadka degdeg aan ka hadlayno haddana aanu doon kale oo geedi caanele la yiraahdo oo xagga dawladnimada ah oo idinku laakiin aad samaysteen oo idinku tan idin ma qusaysaan rabaa inaad hormuud ka noqotaan maadaama idinku aad doorateen golayaashiina deegaanka ayaan rabaa inaan erey ka dhaho
waana isku soo ururaysaayoo xalka waara lama heli karo haddaan xal waara oo dowladnimo la helin dowladnimadeennu waa ku meel gaar meeshii aynu 24 sano ka hor degnay oo si ku meel gaara u degnay waynu ku talagalay 3 sano kadib inaynu xerada ka guuro waynu wali deganahay marka taasi waa arrin la yaab leh dhinaca marka laga eego in marka meeshaan la dego oo dadka talada dib loogu celiyaa waxay ahayd horta marka koowaad himilo dadka reer Puntland leeyihiin laakiin waxay ahayd ballan dadka reer Puntland lala galay bay waxay ahayd 21 sano ka hor in laga guuro oo dadka talada dib loogu soo celiyo idinka 21 sano ka bacdi dib idin ku soo noqotay gobolada kale wali uma soo noqonay degmooyinka kale haddaan rabnaa inaan ku soo noqoto dhinaca kale oo ay arrintaasi muhiimka ka tahay kasoo ballan iyo sharci labadaba sharci daraan ku joognaa hadda meeshaan joogno dadku waxay moodayaan inaan sharci ku joogno ballan ka baxna waa ku joognaa marka waxaan rabnaa golaha deegaanka oo la doortay inuu ka duwanaado meelaha aan golahooda deegaanka la dooran ee la soo magacaabo taa macnaheedu waxa weeye kalsooni dheeraadana inaad siisaan oo la shaqeysaan waxay idinka baahan yihiin inaad siisaan waana inaysan isu ekaan golaha deegaanka oo aad doorateen idinku iyo kuwa la soo magacaabo haddii kale wax ma bedelayso waxa idin saaran mas'uuliyadda gobolada kale oo dhan iyo degmooyinka kale oo dhan oo sugaya golaha deegaan inay doortaan haddii marka aad ula shaqeysaan golaha deegaanka sidii kuwii leediin soo magacaabi jiray ama uu ekaado golaha deegaanku kii hore hayaanka ruuxiisu waa dhicisoobaya marka reer Qardhood waxa saaran iyo reer Ufayn iyo Eyl waxa saaran mas'uuliyadda hirgelinta hanaanka talada dadku soo celinta ayaa saaran rajadii dadka oo dhan ayaa dusheena saaran arrinta in la hirgeliyana waxay ku imanaysaa waxay ka dhigan tahay inaan nidaamkeena federaaliga aan hirgelino haddaynaan doorashada samayn nidaamkeena federaaliga ah ma hirgeliyo haddaynaan talada dadka guud aynaan u celin oo dadkii cashuurta qaadi lahaa ee biyaha iyo nadaafadda ka shaqayn lahaa aynaan samayn nidaamkeenu ma geliyo dowlad dhexe ayuu noqonayaa dowlad dhexena waxay noqonaysaa dee qof mar walba meel kale magan u ah wax ka sugaya arrintaasi marka waa mas'uuliyad weyn oo loo baahan yahay inaynu ka dulqaadno hogaankii dhaqanka oo isaga ruuxiisa arrintan dib ku qabay oo culays ka soo gaaray oo lagu kala dhintay oo lagu kala fogaaday oo markastoo doorasho aan gallo waa kala yaacnaa markastoo aan doorasho gallo hogaankeena dhaqankan iyo keena siyaasadduba waa kala dhintaan waa istuhunaa hogaankeena dhaqanku waa bataa keena siyaasaddu waa bataa qaaraanka lagu kala tagaa talada lagu kala tagaa arrintaas si looga baxo marka waxa loo baahan yahay talada dadka in loo celiyo laakiin talada dadka marka loo celiyo waxa la rabaa dadka talada loo celiyo in lala shaqeeyo arrintaasi aad iyo aad bay muhiim u tahay marka si aynu hogaanka dhaqankana u nasiino oo ay marjicii mushkiladda u noqdaan ilaa mushkiladii dhammaan mayse oo markaynu isku dhacaan oo ay inoo garnaqaan oo geedka inoo joogaan oo cimaamad sharfan ay haystaan iyaga ruuxoodu waxa loo baahan yahay geedkooda fadhiistaan way garta inoo naqaan markaynu tagno marka arrintaani waa arrin dowladnimada ka gaabisay oo iyaga hadda mushkiladaasi ku mudatay bay ku hayaan marka waxaan rabnaa inaan shaqadeennii aan qabsano dadka talada ugu celinaan rabnaa waxaan rabnaa marka arrinta mas'uuliyadda inaan wada qaadno geedigaasna waxaan rabnaa inaan isku aamino kalsooni isku siino wada raro reerka wada furaha dhow ciddii dood kale iyo aragti kale iyo si kale u aragta waxaan jecelahay inaan la doodno wax ka weydiino qodaxda kala guro la garnaqsano laakiin looma baahna inay noqoto in la istuhumo la isu dudo la isu calool xumaado ya bela la saadaaliyo caqabada waa imanayaan markaan guurayno waayo xero weligeedba laga baqayay in laga guuro ayaan ka guuraynaa caqabada waa iman laakiin caqabadu markay timaado waa inaynu xal keennaa waa inaan daadku ina ku soo rogmo sanadba sanadka ka dambeeya waa inaynu xalkii keennaa caqabada waa inaanaan ka biqin berrina waa inaanaan ka biqin xalka iyo halabuurkana waa inaan keennaa marka anigu waxaan rabaa xalka waaro aan biyaha aan rabna inaan u helo iyo xalka waaro aan dowladnimada rabna inaan u helo waa isku xiran yihiin
haddayna dawladnimadeena wax ka bedelin oo talada dadka siin oo wixii ka xumaada idinku hadhow mas'uuliyadda aydan qaadin waxay noqonaysaa is-eedayn mar walbaba marka tusaalaad tihiin reer Qardhoodo tusaalaad tihiin talada gacantiina ku jirta hal abuurkeena anagu waa jecelahay saddexda degmo oo la doortay tusaale inay noqdaan waana u sheegnay beesha caalamka in la taageerana waan rabnaa oo de legitimacy aysan haysan meelaha kale ay haysataan dadkiina codkiina waa ku doorateen waan rabnaa in la taageero laakiin inagu taageerada aynu iska bilowno annaga wixii nooga aadan arrinta diyaar baan la nahay dawlad ahaan diyaar baan la nahay laakiin taladu mar walba idinka idinku soo noqonaysaa aan isku kalsoonaano aan wada shaqayno aan wada jiro aad iyo aad baan u mahadsantihiin